waxa dunida lagu leeyahay rag baa dayax tagay iyo nin baa dhulka galo badda hoostiisa wax ka soo saaray waa bashar kula mid mucjisaad meeshan ma jiraan yani dadka ducafada loo waxyooda rag baa horumar wax la yiraahdo ma jiro waa rag baa tashaday wax la yiraahdaa jira waad horumari kartaa waxa doontaad ka samayn kartaa misaal basiit aan bisiyo abnaa isaxwa nin kamid oo muslim oo engineer aan kula kulmay Sweden wadannada reer galbeedka wadan kamid ah waan inta tajribeeyay waxyaabaha kan waxa afkiisa iga tilmaamo wiilay oo aan wijeeyay workshopkiisa aan soo arkay ma jirta buu leeyahay warshad caalamka ku taala maanta wax soo saarta oo isha lay saaro ilaa iyo waan sameynaya laakiin waxa la leeyahay buu leeyahay ummadii rabtay waxa kan laabkiisa aan tagay iyagoo yaala ku isagu gacantiisa ku sameeyay waa inaan Soomaaliyeed markaas wuxuu igu yiri Mustafa gaala meel ma jirtee cid karowday weydiiyo igu yiri warshadaha horumaray kan baa horumaray hal wiil baa samayn kara yani maxaan tilmaamaya dad ambition laan jirin dad doonis laan jirin dad wax doonaya oo raba waxan inay gaadhaan waxan inuu hiigsado qofka raba waxan inuu gaadho uu gaadhaya ha dheeraata ha dhawaato waqtigu intuu doonaya ha qaato waad gaadhaysaa waxaad u guntato aad ilaahina u tala saarato rumaysantayna alle subxaanahu wa ta'ala ilaahina ku hoojin maayo ilaahay isaga ballan qaaday inaan qofka muuminka hoojin waxma hoojiya alle subxaanahu wa ta'ala haddii hamigaagu uu dhab yahay طريقة مريسانا وطريق طاعة الله كسوغنتا يهي وحقيقة بيا هميغاس لكن وحل لا مجتمعي هميغا كان حنبار لها اخوتي في العقيدة إن هذا الكيد كوبا دي مرة لكن وحا عن ربائنا إذن تصيه والحوق إني بالي إن تسيوا إلهي القرآن كما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنصاهم أنفسهم هنقولنا بقى إلهي كالذين نسوا الله كويا الله إلا بي فأنصاهم أنفسهم إلهي نفتو ذيل عالم الإسلام ما أنت عيدك مرة قبلنا درودي وي سهرك بالو وي أي نجوا حلا إذا عدش يري صما هو تربض التانية هلك باكسي بعيسى ما أنت أنا مثلا فوكس كوجودا بيام رايكن كواي قري gaar ahaan taliskoodu qoray gaar ahaan xisbiga maanta maamula uu qoray gaar ahaan kuwii madaxnimada isu soo sharaxay uu qoray mesela shantii nin madaxnimada ku bareetamayay xisbiga Mareykanka Republicanka shantii nin madaxnimada ku bareetamayay waxa kamid ah wariye caanka ahaan jiray la yiraahdo maxay Mark Buchanan waa nin laba jeer isu soo sharaxay madaxweynenimada Mareykanka saddex madaxweynena la taliyo ahaan jiray 2002 book buu soo saaray la yiraahdo The Death of the West waxa la yiraahdaa geeridii ninka cad ayaa buugga la yiraahdaa waa nin waa raa'idul qawmi la yakdib sahanku been ma sheego reer miyiga haddaad sahan dirataan intuu kuu soo noqdo miyuu ku odhanaya meel lama degaa intuu soo maro roob ayaa la kala taga raa'idu la yakdib sahanku been ma sheego waa nin tolkii u sahan tego wax tilmaamaya oo le mustaqbal bayno ma soo socdo waxa uu ka fikirayaana waxa weeyaan haweenteeni ma rabto inay wax dhasho dhasheenina wuu sii yaraanaya laba kasto oo ninka cadi buu yiri meelaha qaarkood 1.2 labadii bedeli laha xataa ma sameynayaan buu leeyahay waa zero growth population maaha ee waxa weeyaan almost waa death buu leeyahay chapterska buugga haddaad akhrido waad ka naxaysaa mesela waxa kamid ah cinwaan la yiraahdo maxay xayawaanada si dabar go'ayo cinwaan ka dhigay waa ninka cad buu ku leeyahay xayawaanada u baahan dunida in la ilaaliyo si dabar go'ayo ka waramaya waa waytimaanka wuxuu ka waramaya yani qadaayaad aad u waxaan uga jeedaa dunida cid aan mushkilada haysan ma jirto laakiin caalam islaami rag isaga haysta taariikhaha yani ihsaayadiyada ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 2 bilyan inay cagacagaynayaan inkastoo been loo sheego la yiraahdo bilyan iyo 3 iyo meelaha saatiin 2 bilyan inay cagacagaynayaan iyagoo inta cagacagaynaya oo dhulka ugu ballaaran la dunida degan oo ay yiraahdaan taaqa shamsiya cadceedda dhulka ugu badan waa energy ugu wanaagsan cadceed iyo dunida la haysto waxa dunida quudiya rag 3 bilood wax beerta soo Yurub lama yiraahdo dunida kaalmaynaysa waxba la beero la siinaya 3 bilood baa wax la beeraa adna 12 bilood baad wax beeran kartaa haddana waa lagu quudiya bal u fiirso nin 3 bilood wax beerta ayaa wuxuu wax siinayaa nin 12 bilood baa wax beeran kara
همي سيدان بك لقديسا عالم الإسلامي دولك وقفي عنا وحكا بحانا عد عد لبو هايستا بل إلهي وحد لقي طاقة دي دوني ده إنرشيكي دوني ده أردن انت عالم الإسلامي وهو سيالبو يالا شدالك انت خليج كوش بتمويانا انت كالنا انتو راشا وكاكعي هوستا الله شنت الدولة دودا يرى وكاكعي عالم كواحد بترول يالا بمسلم كوكونت عقيد سوس يالا waxa macaadinta alla inta ugu badan iyaga cagahooday ku jirtaa wax ka maqarimo jiro ilaa iyo maxay aqliga laga degay toodiina way ka tageen tu kalena ma haystaan waxay leenahay haddaynu humuum xambaarno al-umma al-islaamiyya siday maanta tay way iska bedelaysaa hammi haddii la xambaaraa uma baahni hammi kale oo dhaqaale iyo baab kale waxaan u baahnay in ilaahay kitaabkiisa sun qudho la qaato in ilaahay diintiisa si dadka muslimiinta qof wal oo kastoo muslimna inuu isku dayo kitaabkan in mas'uuliyad ka saaranta kitaabkan quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi mas'uuliyad ka saaranta kelmadan idinkaga tagay waxa weeyaan war hamigan xambaara dunida waa bedeli karaysaa dunida idinka usaatida u ah laakiin ustaad aan ogeynba ka waran haddii maanta aad halkaa marto aad quraarada yar hesho maxay kula quraarada intay laag oo waxaan qiimo lahayn soo maaha haddii kuwan wax baadhbaadho intaad mid u geyso wacaankaa idhaah ku idhaahdo al diamond baad sidataa qurarda xaggaad dhigaysaa kristalkii yaraa aad haddeer islahayd waxa weeyaan waa quraarad hadday ku idhaahaan waa diamond oo intaasoo milyan oo dollar bay ayay sidataa waxaad garan waayi lahayd halkaad u hoyn lahayd war caawa tanuna halkaad ka dhigtaa bal waagaasi intuu baryayay meelaad dhigi lahayd maad garateen ka warran ninka waxyu samaa sidii aan ogeynba وحي السماء علم أنقف بكو تشرين بو هايستا ما بقى نين ميل مدو سعودون كلية أنكو دبقلو نين ميل مدو قدية أيو لي أنكو دبقلو وهم برير سنية معاكو دبقلو أدابا وحي السماء سيدي رقي وحي السماء سيدي محايل هاي ربعي بن عامر محور رستم كلها غزوة القادسية مركا إذا عضي دقال كاسيلا يسكو هيي أو رستم يري وربل من كان مسلمات وحصو صاري أنا منتالتي قودية عقل قودة كان يسوي فكريان فالعيدي صدر أبوي سعد بن أبي وقاص واحد من 10 المبشرين بعينك وقامني وحلوتك صدح سحابي بقلبه مدو درا كي كواد الله درا ووتبي سقو ورميه سيا وحي سيبا ستة وحي إذا هذا ورمها إياه هبك الله لما قالوا مدح ضياده هبك ديقو madaxdiinu iyada ay yeeratay wadaadaydeenu doonay oo iska noqonaya oo kaygaan iska dhigi maayo waxa la yidhi soo qaado maayo isagii baa loo tegey ninkii caynkaas u sheegaya baa la yidhi anigu haddaan macahubkayga laysii dayna way iska tegayaan soo daaya buu yidhi macahubkiisa fars yaroo gaaban buu wataa la yidhi oo iska soo qadiifada iyo de ninkan wuxuu rabaa inuu muujiyo dowladnimadiisu intay laagtay bannaano dhan buu qadiifada dhigtay sariirtii boqortooyadana wuu saaran yihi qadiifadihii buu iskala soo barkin yaroo halkan la dhigo waran ayuu ku xidhay baa la yidhi faraskiisii isagoo warankiisa iskala tukubayuu u gala wuxuu weydiiyey maxaa idin soo saaray waddankii yacni haddii idinka keentay gaajo iyo xoolo iyo waxaan anaa idin siinaya yacni xoola buu leeyahay arrigiinni ku noqda wuxuu yidhi ilaahay baa na soo saaray allahu ibtacasana ilaahay baa na soo saaray muxuu sheegtay ilaahay baa na soo saaro wuxuu noo soo saaray buu leeyahay inaannu ka saarno dadka ay addoonsadaan oo ilaahay dadka addoomma uga wada dhigno waxaan u soo baxnay buu leeyahay dadka inaannu ka saarno dunida cidhiidhigeeda waanu ballaceeda geyno bal labada nin hadda u kala fiirsay adduun waxay kala haystaan ninna faras yaroo gaaban buu ka wataa iyo laba waran ninna carri buu gogoladay laakiin ninka faraska yar fuushan baa wuxuu leeyahay dunida cidhiidhigeeda kaa saaraya oo waxaan ku geynayaa maxay ilaa sicatiha waxaan kaloo u soo baxay buu leeyahay inaan idinka saarno diimaha haysataan dulmigooda oo aanu idin saarna cadliga islaamka iyo cadda yani waa nin ustaad isku kalsoon وبروفيسور واركيا إنه يهي الرسول إلهي الرسول كيسي حقي سلقا صادري حل كساري يهي والرباو مدهن هبين كجودة يينو هبين ماذا كسارو ما داموا بوس كالربيسين وتاقي وحواركا ذكريني مساكين يهين ويوحا كما كان هديجي إلهي أدنى هذه هديجي إلهي سيدات سوارك تاينا تهيم حي قفوا بهند مجتمع عالمي يوم حيد هذا المان يعني تعابير تعصب الله شيء world community كم حالة شيء مجتمع الدنيا هالنسوق ريو مجتمع الدنيا وحن قبنا أي مجتمع الدنيا أهل كفر بادو يري صادقوا إسلام سيده
adoo islaam sidaad waxba qabsan kari lahayd oo cid kale daba socota kelmadda waxaan kusoo koobaya ikhwati fi lcaqiida anuu idin malihi war cid baa idiin maqan iyo xoolaa idinka maqan xoola idinkama maqna hub idinkama maqna waxba idinkama maqna wartalaa idinka maqan iyo raganimo waxaa idinka maqan hami waxaa idinka maqan qalbigiina kan inaad dib u xisaabisaan oo aad garataan waxaana xambaarsantiin inuu yahay waxyigii ilaahay ugu talagalay in dunidan lagu hagaajiyo waxyigii dunidan oo dhan loogu talagalaa sidaanay wax bixiya idinkaa wax laydinka sugayahay cid waxaa ka sugina ninka la sugaya waa adiga laakiin haddii adigii lagu sugaya adnaad cid kale sii sugto markaasay ummaddu jabto dunidu waxay dulmiga gashay ee faraacinadu u hogaamisay waxa loo waayay ciddii hogaamin lahayd ahlu xaq ahayd waxaan kelmadda kusoo koobaya markaasi ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha la xasuusto isagana ha la tala saarto wallahu aclamu billahi tawfiiq